horta waa alxamdulilaahi 2020 aheeda umaleynaa markii aan idhi walba kala reeba haddaan la hurayn waayahan waa ka nasanay xoogaa gabdhihiin oo soo ilbixeen waayahan dambe raggu ay eedaynayeen waxay dhahayeen kaba yaray abaayoy waa iska nuursan jirnay laakiin after advice-kaagi waxaa waaye wixii hala kala reebaa tiriyo wejiga waana laka qariyaa awal laakiin waa nuursan jirnay halkaas waxaa ka cad nuursashadaas la sheegayo inay wejiga tahay yaa in la soo raaciyay inay jecel yihiin oo wejiga markii laga reebay waa ay eedaynayeen wiilashu yaa kii fiicnaa iyo kii xumaaba waxay dhahayeen waa qofee waa nagu dheesh marka hadda waa la soo rogaal celiyey hawshii maheedii kasii bilaabatay maxamed buskut waxaan kuu sheegaa walaalkayo waa mahadsan tahay rag badan oo adiga camal ahoo maaragtay aad gabdhaha ugu damqada way jiraan wayna ka buuxaan social mediaha because nin kasta wuxuu dareemaya in gabar la dhalatay inay uu dhalay ama uu dhali doono inay walaashiisoo kale tahay laakiin aniga waxaan qabaa oo waxaa ugu weyn caawan lifekan usoo galay waxaan rabaa inaan halkan fariin uga diro reer Africa horta America iyo Europe shaqadaanu kuma badna especially TikTok-ga waxaa laga soo galaa oo aad looga isticmaalaa Soomaaliya iyo Africa oo dhan reer Africa waxaan leeyahay kaalay annaga reer America reer qurba joog oo dhan haddaan nahay qurba joog oo dhan North America ilaa iyo Europe ilaa iyo Australia dadku raggu gabdhaha sidoodii hore iyo Soomaaliya waqtiga sida gabdhaha loola xisaabtami jiray iyo sidii loo canaanan jiray looma canaanan karo oo qiil bayba haystaan waxay leeyihiin sharciyan ka cabsanaynaa iyo la isma garaaci karo la isma dili karo meeshan waxay soo sheeg la isku leeyahay tii boodboodo hadduu wiil halaabo iyo hadday gabar halawdo waxa waaye waa faraha laga qaadaa because wax badan lagama qaban karo laakiin waxa isweydiin mudan reer Africa maxaa ku dhacay reer Africa maxaa ku dhacay walaalayaal TikTok-ga uu ka sii darooyaa waa aragteen waayahan dambe hadda waxaan arkayay awal heesa inta la shitaa la isruxruxayay oo isaga ciyaarayeen laakiin bariyahan dambe hees ina aragteen in kala ma kala aqaanee hees aan u malaynayo inay ka daawadeen qolooyinkan ajnabiga ay ka daawadeen ma aqaano ma Afrikaana heestu ma ogi ma Amerikaana laakiin kulli heestu Soomaali ma aha hees la isqaawina hees biyo la isku subaayo dharka la isku qoynayo marka arka heestaas biyaha la isku subaayo ilaan dadkan waxay meesha ka arkaan unbay koobiyeen oo sameeyaan heesta biyaha la isku subaayo markaan arkay waa filayay in ma aragtay qaawanaantu ku xigto oo iyadoo la qubaysaay la soo duubi doono heesta waa aragteen reer TikTok waa daawateen dadka aan TikTok galahayn ani camal TikTok malihi laakiin de asxaabtayda dad badan baa laho ayagoo daawanaya aan arkaa ama wixii TikTok la soo geliyay Facebook baa la soo dhigaa waa aragteen heestaas la isqooyayo naasaha inta la qaawsado inta baati la soo xirto xeebta liida la tagaayo ama Nairobi kuwa jooga ahaadaan heestaas biyaha la isku subaayo markay soo baxday waa filayay inta na soo noqonayso hawsha caanka ahayd iyada ahayd in iyadoo la qubaysahayo musqusha lagu jiro la soo duubaayo waa filayay wayna dhacday waa caawada wad haysaan update kala maanta galabta ilaa iyo galabta markay anaga noo ahayd ilaa iyo caawa wax kale ma socon waxa la soo didirayay klibka gabadhaas yar oo walaasheen ah waa gabar yar waa ayada ficid waxa TikTok soo wada gala adaay waxa lay tusay TikTok ayada ay leedahay naftirkiisa lay tusay markii gabadha lay tusay klibkeeda ka bacdi waxa lay tusay TikTok-geeda marka waxay sameyn jirtay waa arkayseen ayadoo dhar qabtayba waxay rabtay sameynaysay ka bacdina dharkiya ku filaaway saan filaayo waxa isweydiin mudan marka annaga markaan teenage ka ahayn walaalayaal ma maqlaysaan annaga markaan teenage ka ahayn oo Africa aan joognay waa taqaanaa markaad teenage tahay oo ama markaas gabar soo baxaysa aad tahay shukaansi baradka marka la yahay haddaan wiil inaan shukaansana aan rabno oo la ballanno bannaanka anagoo taagan walaalaheen nala dhashay ma noo ogolayn iska daa in lagugu arkay waa isheeg way adkayd inaad nin la sheekaysato oo Soomaaliya waa aragteen gabdhaha wiilashu aad bay ma aragtay u canaanan jireen ama u wardiyeysan jireen waxa ku soo haray iska daa wiilku adigu kula dhashay dariskaana soo burin jiray dariska naaya maxaa meesha ka qabanaysaa maqribkan habeennimadan
ama adoo wiil la taagan hadduu ku arko walaalka ayaan kuu sheegaa ku dhaha wiilka dariskaaga ah iska daa wiilasha nala dhashay waxaan ka cabsan jirnay wiilasha dariskeena ah marka waxaan rabaa in halkan baaq uga diro war nimanka Afrika joogow maxaa idinku dhacay wiilasha Afrika joogow maxaa idinku dhacay waa u jeedaan gabdhihii way ka soo dareen gabar kasta waa taqaaniin meeshay degan tahay gabar kasta asxaabi fareen ay leedahay markay soo gasho TikTok oo ay biyo isku shubayso isqooyayso ama iswalaaqayaan wiilashii Soomaaliyeed oo gabdhahan bursan jiray ilaan xora u tihiin cid idinka celinaysa ma lehe iyo sharci uga cabsanaysaane what's going on wiilashii maxaa ku dhacay maxaa nimankii damiirka uga dhacay wiilashii Soomaaliyeed damiirka maxaa uga dhacay waxaan idin leeyahay chance fiican haysataan gabdhaha ka soo gala TikTok Afrika chance fiican aad ku haysataan qabta ee garaaca ya haddii kale hawshaan say u socoto nin walbo gabdhahaas niman la dhashay haddii xataa niman la dhalan walaalo iyo adeer iyo cousin iyo waa leeyihiin walaalayaalow reer Afrika waaba another level atiin waa ka soo darteen nimankii wiilashii hore camal ma aha oo quality-giina aad u liitaa naagahan yar gabdhahan yar garaaca anigu hadda xal kala ma hayo wax kale idinku soo gali meeshaan muhiimadda u soo galo waxa waaye wiilasha Soomaaliyeed ee Afrika jooga Muqdisho joogo Nairobi joogo xora u tihiin cidna idinka celin mayso hadday dariskaaga tahay iyo hadday kaasantaada tahay hadday kula dhalato waa garaaci kartaa garaaca TikTok ha laga jaro gabdhaha jooga Soomaaliya iyo all Africa ya intaasaan codsanayaa haddii kale ceebta waa sii badahe arrintaas oo igu raacsantihiin soo maaha arrintaas oo igu raacsantihiin war aawo wiilasha quality galaayo shukaansiga noo diidi jiray aawo wiilasha gabar kasta wiil la dhashay ama wiil dariskeeda ahay lahayde kuwii shukaansiga nagu garaaci jirayo TikTok iyo la isqaawiyaa soo baxday maad ka hor tagtaan ma ka hor tagtaan oo gabdhahan yareer garaacdaan waa arteen gabdha yareer waaye gabdha yareer ay u badan yihiin ya in loo miciinay rabaan in la cistay rabaan in la garaacay rabaan wax kale ma rabaan wax kale uma baahna marka arrintan meesha ay ka liidato waa xagga wiilasha waay wiilasha walaalow macaanow haddaad ma aragtay nin damiir la tahay oo aad walaasha kula dhalatay inay ku dhowrsanaato aad rabto tadariskaaga ka bilow garaac walaasha iska dhaafay tadariskaaga garaac weydii intay degan tahay taa TikTok ku aragto iyadoo saas u kala qabayso weydii kuwa ay saaxiibada la tahay weydii intay degan tahay meeshay degan tahay ugu tagay garaaca wiil kasta oo Soomaaliyeed gabdhaha TikTok isticmaalo wax kala ha qabanina ugaarsada waa idinku taageeraynaa waa idinku caawinaynaa waliba haddaad rabtaan caawimaad xataa waa idinku caawinaynaa wallahi waa iga codsi wallahi baatil la isku qooyay iyo naasa iyo daba la taagay iyo dharkiya hadda ku filaaway waa u jeedin dharka la siibanaya ya wiilasha lagu adkeeyaa wiilasha inta xun anigu lama hadlaa inta wanaagsan oo damiir kala la hadlaaya oo soo qoraysa maanta oo dhan soo qorayaan ceeb waaye gabadha Soomaaliyeed yaan la faafin videogeeda wiilasha dhahayo gabadha videogeeda in la faafin hadaa rabto inay iska duubin ka hortag inay iska duubta ka hortag garaaca meesha ku aragtaan gabar Soomaaliyeed ba meesha ku aragtaan TikTok iska duubaysa garaaca no ya reer Afrikaan u badan TikTok waa ogtiin TikTok reer Afrika u badan TikTok reer Afrika oo balaaya TikTok soo saartay goor khayr TikTok lama soo saarin TikTok waxa u badan reer Afrika garaaca intaas aan idin leeyahay gabdhaha Soomaaliyeed waxaan leeyahay inta samaha jecel oo wanaaga jecel gabadhaas kulleeyda kulligiin ma aragtay waa ka wada damqateen wiilashana sidoo kale inta samaha jecel waxa sameeynaysan gabadhaas inay ugu dambeysaan rajaynaya insha Allah inay gabadhaas ugu dambeysaan rajaynaya waa salaamaya inta samaha jecel kor Allah ka dhigo ballanteenu waxa waaye Afrika TikTok laga soo galo gabdhaha TikTok ka soo galo in la garaaco tala kale anigu ma hayo shukaansiga waa lagu garaaci jirteen garaaca mase nimankii quality-gooda uu dhinmay miya ya generation kan wiilashan yareero hadda jiro quality malamiya ya waa salaamaya inta samaha jecel kor Allah ka dhigo khayr idin dhaafay love you guys waa idin jeclahay shanaana ka dhaha